agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Professor Aadan Cabdullaahi Muuse ayaa magaalada Hargeysa ka furay shirka 3 biloodlaha ee u dhaxeeya wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland iyo hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin isla markaana ay ka wada shaqeeyaan dhinaca wax soo saarka beeraha dalka. Shirkan ayaa ah mid ay hay'adaha iyo wasaaraddu ay isku xog wareystaan waxyaabaha la xiriira mashaariicaha isla markaana xogaha ay isku dhaafsadaan. Ugu horreyn waxaa shirkaasi ka warbixiyay ujeedadiisa agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Cabdisaaq Shaafi. hay'adaha wasaaradda beeraha la shaqeeya ay kala shaqeeya horumarinta beeraha sidii caadiga ah ama hore uga soo qayb gali jirteen waxa weeyaan waa 3 bilood la shir la qabto ama quarterly agriculture coordination meeting imaashihiina iyo inaad ka soo qayb gashaan aad baad u mahadsantihiin. inta badan coordination kan ama agriculture coordination ka quarter ka 3 bilood laha waa mid update ka partners ka maadaama ay mashaariic badan oo beeraha oo wadanka ka socda ay jiraan xogaha lagu kala qaato si wada shaqaynta iyo ma garanaysaay wixii transparency uu fiicnaado xogta loo kala helo iyo si loo xoojiyo xiriirka ay hay'adaha ama mashaariicaha wadanka ka socda ay leeyihiin wasaaradda. taawad ku mahadsantihiin. hay'ado badan baan invite gareynaa agriculture ka shaqeeya oo Oxfam ka mid tahay GIZ WFP, FAO, and Islamic Relief, and FARA Foundation, and Action Aid, World Vision, Concern Worldwide, World Concern, WHH, and ADO, and maxay Fayoko, Candlelight, waxa alla wixii agriculture ka shaqeeyay inta kale ilaaw. Marka dhamaantii waad mahadsantihiin kuna soo dhawaada. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Professor Aadan Cabdullaahi Muuse ayaa dhankiisa soo dhaweeyay kulankan u dhaxeeya wasaaradda iyo hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin. anagu runtii aad baan ugu faraxsanahay in hay'ado badan ay nagala shaqaynayaan sektorka beeraha oo dhinacyo kala duwan ah haday tahay xagga tababarada iyo capacity building ka la siinayo beeraleyda iyo shaqaalahaba haday tahay sida loo kordhinayo wax soo saarka haday tahay badbaadinta iyo maxaan ku raahdaa dhaqaaleynta ciidda iyo biyaha intuba muhiim u ah wasaaradda iyo wadankaba runtii qarankuna wuxuu hiigsanayaa inuu horumar badan ka sameeyo dhinaca wax soo saarka si isku filaasho loo gaaro taasina kulamadeena noocan oo kale yihi qayb weyn bay ka yihiin aad muhiim bay u yihiin. waxaan rajaynayaa in kulamada dambe aynu si hab sami ah isugu iman doono oo aynu uga wada hadli doono waxyaalaha socda imigana kuleyto kulankeena waxaynu ku bilaabi doonaa in aynu iswargelino ama isaga warrano waxa socda iyo waxa qorshaysan iyo wixii dhamaaday halkii wax marayaan. wasaaraduna waxa muhiim ah inay la socoto waxay hay'aduhu ay kala shaqaynayaan wax wada dhisno umaan jecel lahay oo in hore u socono wixii naga xumaaday ama wax jiri karaan hadii shaqo la qabanayo waxina qalqaloocdaan waxaana in cashar laga barto oo dabeedna la dhiso oo aan ka faa'iideysano inagoo toosinayna wixii naga khaldamay. waxaan idin rajaynayaa khayr badan baan idin rajaynayaa.